salaan dabadeed waa xabeebay waxaan ka imid Garoowe oo lama oran karo hadii caasimadda Puntland kaliya waa world class caasimad caasimad shidan baan ka imid oo laga seexanin oo waan ka yaabo waxaan meeshan ma New York City ba anagu hadaan Mareykanna reer New York ma seexdaan marka insha Allah barnaamijka iyo wax qabadkana waxaan ku darsan doonaa Garoowe iyo New York waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay magaalada Qardho inaan imaado mar labaad 2018 waxaan la imid madaxweyne Gaas oo aan Dubai ka soo raacay waxa kaliya aan ka arkay waxa weeye isbitaal qabyo ah oo madaxweynaha la tusayay iyo madaxtooyada maanta waxaan arkay ma sha Allah dad aan laga sheekeyn karin iyo magaalo aan laga sheekeyn karin marka waa ku faraxsanahay inaan u imid dadkayga iyo dalkayga alxamdulilaahi rabbil caalamiin mataaneentu hadii aan laga faa'iideysan waxba ma siyaadiso marka mas'uuliyiinta iyo shacabka sharafta leh halkaan isugu yimid waxaan idinka codsanaynaa inaad ka faa'iideysataan waayo mataaneentu saad ula socotaanba Minneapolis iyo Boosaaso waa tii la mataaneeyay fikradda kadib bay ugu dhalatay markaas baa waxaan idhi Boosaaso iyo Minneapolis qalab bay wadaageen qalabka ninkii laga keenay wuu iska bedelay idinkuna bari baa bedelaysaan maxaan ku soo kordhin karaa human asset-ka waa waxa ugu fiican qofka bini'aadinka inaad hanti gashato waa waxa ugu fiican marka waxaan ka fakarnay in tacliintii aan ka shaqeyno waxaan la soo xiriiray meeyarada ugu fiican baad haysatiin waxaan idinka codsanayaa inaad la shaqeysaan duqa magaalada iyo gudoomiyaha iyo mas'uuliyiintoo dhan waayo dawlad aan shacab la shaqeynaynin ma dhismato diyaaraddu waxay u baahan tahay garoon ay ka degto iyo garoon ay ka kacdo garoonkii waa annaga shacabkii waa inaan la shaqeynaa dawladdeena inta badan waxaa inoo dhaqana wixii aan rabna haddaan ka weyno inaan mucaaradno waxaas waa dhaqan xun waa inaan iska daynaa waayo qofka bini'aadinka ah haddaad maanta ka weyso waxaad rabtid berri baa ka helay haddii maanta uu ku sii waxaad rabtid oo berrina aad ka weyso xasuuso inaad shalay ka heshay hankaagu dawladnimo ha ka weynaado maxaan ka helayaa barnaamijkan mudduu soo socday haddaan warbixin kooban idinka siiyo muddooyinkaas uu soo socdayna dulqaad iyo dhabar adeeg baa halkaan ku soo gaarnay aqibo badan baa naga hor yimid qof walba wanaag wada oo iska aakhir zaman qof walba wanaag wada saad ula socotaanba aqibo badan baa ka hor imaanaya waxaan u mahad celinayaa teamkeygii daljoog iyo qurba joogba waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta iskoolaadka Boston high schooladooda ay yaqaanaan degmada Qardho iskoolaadkooda waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay ardaydeen markii aan iskoolkii maamulihii isku xiray oo macallimiinta aan isku xiray baan waxaan u gudubnay ardaydeena inaan isbarno marka waxaan ka walwalayay Ingiriis ma fahmi doonaan ma inaa u turjumaa say isugu turjumaa hadda turjumaa tahay aad garanaysaa it's not easy word to word inaa u turjuntid af Soomaaliga suu yahay iyo suu Ingiriisku waa kala duwan yihiin marka ana walwal qaba ba ardayda la soo ag fadhiisi waa ka yaaba Ingiriiska ay ku hadlayaan ay iga badiyaan ba accent ma leh waxaan u mahad celinayaa maamulada iyo macallimiintii wax soo baray saan annaga sidaan ku soo barbaarnay macallinku waa waalidkii labaad waxaan waalidiinta halkaan joogto ku dhiirigelinayaa ardayda macallimiinta iyo maamulada si ay u dadaalayaan ardaydan u dadaalno haddaynu waalidnahay qaasatan hooyada waa laf dhabarkii guriga waa laf dhabarkii society-ga dumar iyo haween baa lagu haweystaa nolosha dumarka waxaan ka codsanayaa in caruurta yaryar ay dhiirigeliyaan dhaqankeenu waa dhaqan aad iyo aad u adag hadda wadamadan hormaray waxyaalo badan oo diinteena islaamku ay nafartay baan ka baranay oo ah qofka special need-ka leh inaan lagu caynin waxa uu qabo hadda matalan Mareykan qof indhoolaha ma oran kartid indhoolaha tahay jiisku ma oran kartid jiis baa tahay annaguna magacyadooda baan ugu dhigaynaa xaraam caleek dhaqankaas waa inaan bedelnaa curyaanka bacaga looma waayine ceenka waxa loo yiri kuwa cararayay ladan inay ku cimri qaataan marka waa inaan cimri qaadanaa annaga waxaan rabaa barnaamijkan ilaahi hirgeliya xamdi iyo shukri leh dawladii iyo maamuladii soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo ku darsanayaa special education-kii aan ka hadlay dadkeena naafaha ah waxa la baro wacdigelin hal la suubiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala qafuur rahiim waaye hal albaab haduu oodo albaab badan buu furaa dadkeena curyaanka ah maskaxda curyaanka ma aha
hadda waxa iskoolkii ugu horeeyay magaalada aan ka imid waa magaaladii aas-aastay xorriyadda Mareykanka askariga ugu horeeyay magaalada baa laga qoray jaamacadda ugu horeeyay magaalada baa laga fuliyay isbitaalka ugu horeeyay meesha laga dhigay public park hadda meelahan annaga aan iska marmareyno oo caleen iyo geeda aan oolin geedkii ugu horeeyay Mareykan meesha lagu beeray waay ilaa haddana waa beeraya waana la waraabiyaa marka dadkaas waxay ka fakareen annaguna waa inaan ka fakarnaa muwaadin waa inaan noqonaa muwaadinkuna ma dhaho waxa uu ku soo kordhinayo wadankiisu ma dhaho maxaa la igu siinayaa ما waxaa jirtay madaxweyne aan wada naqaano JFK ask not what your country can do but ask what you can do for your country ha weydiin wadankaaga waxa ay ku qaban karto laakiin weydii wadankaaga waxaad adiga u qaban kartid marka dhamaanteen waa inaan weydiinaa waxaan wadankeena ku soo kordhin doono wax badan baan ku soo kordhineynaa mas'uuliyiintii hadashay waa kaga mahad celinayaa dumarka inteena badan waxaan u doodnaa in hadda waxa la yiri baarlamaanka xildhibaanka ay sheegay 40% golaha deegaanka waa dumar ما شاء الله وأقول نوسو هيتي وأكو فرح سنة هاي دمركو هل علت بانو قبنا ورجوا أيسن قبين هل كعلادو هاد الدمر لماذا نو كينيس إلهي رجع دمركو بمسلمين دينيا اسكو مسكحنا كما أوصل دجن اسكو أركتنا كما أوصل دجن هدي متكنا يهرمرتو مدك اللي يلوك تكون دجن رجوا حس مقبان إلا نقفكو وحكو في عياء وحكو حيا والله شيء annaguna waxaan ku fiicanahay naxariista hadaan wax hogaaminayno waayo dhanka naxariistan ka eegayna daacad baan nahay laakiin isqa qabashada yar yar iyo meelaha aan important ah oo la fiirinayo aan iska dayno gabdhaha aad soo xulanaysaan rag oo kale aysan noqon ragga waxa la igu yiri intay geed fariistaan been nabadoonadooda u tagaan ayaga soo doorta annaguna maaha inaan dhahno heblaayo ex ka soo jeedaayay family ex ka annaga waa inaan kula tartamaa ma heblaayo karti ma leedahay aqoontu waxa ka horeysa aqliga ilaahay qofka u dhaliyay kartida ilaahay siiyay dadnimada dabeecadda inta soo dhan jaamacad laga ma helo macalinka akademiga uu ku bari karaa inta waa hibo eeba ku siiyay marka gabdhihiina ha ku soo xulanina aqoon kaliya ku soo xusha kartida ma leeyihiin dulqaadka ma leeyihiin dadka ma isku wadi karaan ilaa meeqa aqoon leh oo PhD wada haysta oo aan cidina hogaamin karin marka waxaan idinka codsanayaa haween hadaynu nahay inaan isku dulqaadano inaan is caawino hadaad aragtaan cunugaaga oo iskool u socdo oo quraac siisay cunuga dariskaaga make sure inuu quraac cunay it takes a village ay dhahan afrikaan mahmaadeeda waxay tahay it takes a village to raise a child cunuga hal guri kuma kor village ko dhan baa korisa إلهي سبحانه وتعالى علماء ذي بفرسان إلهي سبحانه وتعالى دينتنا وحي كسل يسنتها بالنحريس هذا أنا قبلها دقن كان مودنا ليده إنه أنا أرانا إنه وحي يسنبرن قريها هاي نوتشوغان ودمر وكان وكاس دينتنا إنه شكتين نبي جيني سبحانه صلوات الله عليه وسلام نك صدق قبل محل يجي وصفي عن أكرسده أهل الجنة قوش إنك واد محاواي ترى الله ذا نوع هريسا marka gabdhaha ilaahay karaameeyay yeyna isku daynina annaga karaamada ka ridno waayo ardallah karaamay qabaan qof ilaahay muujiyaad ma qarin kartaa maya marka dhaqankan adag xoogaa aan iska yara bedelno anigu hadaan qurba joogta ahay wallahi dal joog baan ka jeclahay waayo markaan tagno wadamada kale Soomaaliya waa dadka ugu fudud ee isbedela aad iyo aad isku bedelna caruurteena kaliya maaha dadkeena waaweyn xitaa waa isbedelayaan afar sano markuu joogo Ingiriis kula hadlaya wuxuu ku leeyahay I forgot how can you forget inda yarkii 100 sano jooga afkiisu ku faanaya hindiga waa sidoo kale carabku waa sidoo kale ma dhaqankaaga ku faantid marka hadalka waa idinku badi reer qarnood waa nila jooga hadee waa mahadsan tahay ma oran karo sida la ii soo dhaweeyay la ii ixtiraamay waaba inaan idin soo guuraabo reer qarnood idin la noqdaa waa mahadsantiin aad baan maasiin gabdhuhu intaysa tagin waxaan rajaynayaa gabar baa waxay iga codsatay inay buraanbur tiriso marka waa dhaafi waayay maadaama deeqa ay ugu tala gashay